qofka ugu horeeya ee la xisaabi doono qiyaamaha ambiyada kamid ah qofka ugu horeeyo ee ambiyada kamid ah qiyaamaha la xisaabi doono madrasadii ugu horeysay islaamka waa madrasadii la oran jiray ama daartii masaajidka ugu horeeyay islaamka dhexdiisa awwal masjidin fi islaam nabiyina dhisay calayhi salaatu wasalaam waa masjid qofkii ugu horeeyay ee seef siibto islaamka dhexdiisa ku soo dhawo muuqaal aad u wanaagsan waxbadan wada ka faa'iidi doontaa laagta ku dhufo subscribe ku dhufo nagu soo biir gambalelkana furo macluumaad fara badan ayaad heli doontaa insha allah mahadsanidin بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وبرنامج كيني أها أوغو وحيابهن وحي أهري بلاب أوغو يا برنامج كان عبان كسل هذا والله ما بحي قيبتك هذا وصابرني قيبت اللبادنا وحنكبردنا إن شاء الله إسلام كدحديثة waxyaabihii ugu horeeyey awaawil islaam ayaan baranaa insha allah qofkii ugu horeeyey ee islaamo xagga ragga nabigana rumeeyey calayhi salaatu wasalaam waxaad garanaysaana waa sayidina abubakr sidiiq radia allahu tacala canhu wa ardaah qodobka labaad waxa uu yahay qofkii ugu horeeyey ee dumar ah ee islaamo xagga dumarka waliba ugu horeeyey waa sayidatina khadiija binti khuwaylid radia allahu tacala canha wa ardaaha saddex qofkii ugu horeeyey ee islaamo حق عرورته وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وسيد علي بن أبي طالب سقو ير أيو إسلامي وليس الله الصنم ومسجود وإسلامك وحقاته سقو ير وصغيرة سبيئة قولك أفراد وحقوية هاي مؤدنك أغوهري إسلامك الأحديثة وسيدنا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وارضاه وقرن إنسان مؤدنك codka macaana codkan dhexraay sayid bilaal alxabashiy ee la yidhaahdaa qodobka shanaad waxa uu yahay waa barnaamijkeena ogow ka mid ah qofkii ugu horreeyey ee seef siibto islaamka dhexdiisa waa dalxa bin cubaydillaah radia allahu tacala anhu ardaa waxa uu ahaa shahiidkii ugu horreeyey islaamka dhexdiisa shahiido horena u soo barannay waa sumaya radia allahu tacala anhu ardaaha qodob sideedaad waxaan leenahay madrasadii ugu horeeyay islaamka madrasadii ugu horeysay islaamka waa madrasadii la oran jiray ama daartii daarul arqam bin abil arqam saxaabigaas jaliilka ah markii dacwada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee siriye ahayd oo sira ku socotay waxaa soo tagi jiray daartaas al arqam bin abil arqam saxaabigaas aska lahaa ma sha Allah masaajidkii ugu horeeyay waa qodobka sagaalaad masaajidkii ugu horeeyay islaamka dhexdiisa awwal masjidin fi islaam nabiyina dhisay calayhi salaatu wasalaam waa masjidu qubaa markuu madiina soo galay marka ka soo hijrooday ayuu nabiguna dhisay calayhi salaatu wasalaam qodobka tobanaad waxa uu yahay cunugii ugu horeeyey ee loo dhalo muslimiinta markay madiina yimaadeen ay soo hijroodeen kadib ay madiina yimaadeen muhaajiriinta cunugii ugu horeeyey ee u dhasha waxa uu ahaa saxaabiga jaliilka ah cabdullaahi bin zubayr radia allaahu canhuma koob iyo toban ansaarna waxaa kow u dhashay ayagana nucmaan bin bashiir radia allahu tacala canhu ardaahuma ansaarna sa u horeeyey muhaajiriinna waxaa u horeeyey cabdullahi bin zubayr kow u dhashay markay yimaadeen halkaas masha allah qofka ugu horeeyey ee kacbada laba albaab u yeelo qofka ugu horeeyey ee kacbada u yeelo laba albaab waa cabdullaahi bin zubayr radia allahu tacala canhu ardaaha qofkii ugu horeeyey ee kitaab qofkii ugu horeeyey ee dejiyo taariikhda hijriga waa 13 qofkii ugu horeeyey ee taariikhda hijriga dejiyey waa sayidina cumar ibn al-khadaab amiir al-mu'miniin athani radia allahu tacala canhu ardaah allah kala noqday taariikhda hijriga ee maanta maraysa 1443 sida cumar markuu khilaafada hayay ayuu dejiyey ayuu ahaa ma sha Allah qofka ugu horeeya ee la xisaabi doono qiyaamaha ambiyada kamid ah qofka ugu horeeyo ee ambiyada kamid ah qiyaamaha la xisaabi doono waa nabiyullaahi nuux calayhi salaam ma sha Allah 14 garkii ugu horeeyey ee loo dhibo islaamka dhexdiisa garkii ugu horeeyey ee la jiido ama la dhibo waxa uu ahaa garkii uu lahaa sayidina haaruun nabi haaruun calayhi salaam ayuu ahaa maxaa nabi muuse ayaa jiiday markii qoomkiisa uga tegey oo nabi muusena uu baxay
ayuu nebi muuse wuxuu soo laabtay calayhi salaam qoomkii reer banu israa'iil oo dibi caabuda markaasuu wuxuu jiiday garkii nebilah haaruun walaalkiisna uu ahaa yidhi maxaa kugu dhacay marka kaaga tegey saa maxaa ku dhacay uu yidhi markaasuu yidhi yabna laa takhud bilixyatii walaa bira'sii inii khashiitu an taquula faraqta wuxuu yidhi garka ha jiidinuu yidhi waxaa ina hooyo waxaa ka cabsay inaad dhahday reer israiil ayaa kala geysay marka waxna ku kari waayo waa marka nabilah haaruun calayhi salaam garkiisa ayuu ahaa garka ugu horeeyey ee la jiido 15 xasaska rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u horeysay kow umina khadiija radia allahu tacala an ardaaha sida khadiija ayaa u horeysay 16 aayaddii ugu horeysay ee soo degta ee qur-aanka kariimka ah waa suuratu iqra bismi rabbika aladii khalaq waa aayaddii ama suuraddii ugu horeysay ee qur-aanka kariimka soo degto maa sha allah xasaska rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka ugu horreey ee la oobsada ma geeriyoodo waa sayyidatina khadiija binti khuwaylid radia allahu canha sida ugu horeysay xagga guurka ay xagga wafaadkana ugu horeysay sayida khadiija allah kala noqdee 18 awalu safiirin fi lislaam safiirkii u horreeyey islaamka waxa uu ahaa muscab bin cumayr radia allahu tacaala canhu wa ardaah muscab mucallim almadiina waa la yihahdaa inta nabiga ana soo haajirin calayhi salaatu wasalaam ayuu madiine usoo diray nebiga sal ly slam reer madiine ayuu islaamka dacwadii ku faafiyey qur'aankii baray muscab bin cumayr rag fara badanna gacantiisa ku soo islaameen dagaalka uxud ayuu shahiiday saxaabigaas jaliilka ah waa marka safiirka u horreeyey islaamka waxaa laga soo diray maka madiina loo soo diray islaamkan madiina u qaabilsanaa muscab bin cumayr allah kala noqdo 19 wuxuu leeyahay qofka ugu horreeyey ee maxamed loo bixiyo waa garanaysaa dhammaantiin qofka ugu horreeyey maxamed loo bixiyo waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam hortii maxamed cid looma bixin maxamed nabiga la dhijri calayhi salaatu wasalaam ma sha allah haye 20 qofka ugu horreeyey ee salaada duhur tukado qofka ugu horreeyey ee salaada duhur tukado waa nabilah ismaaciil calayhi salaam marka maanta 20kaas qodob ayaan ku barannay dadka u horreeyey ee bilaabo ee ugu horreeyey 20kan qodob dadkii ugu horreeyey ayaan barannay barnaamijkeena ogow halkaas ayaan kusoo ilinana insha allah waa xigmado ayaa barateen qisooyin iyo ayaa barateen macrifo aqoon dheeraad ah ayaad kororsateen insha allahu tacala idinkana sii faafiya oo asxaabtiina la sii wadaaga oo sii bara hana iloobina in ciwaankeena laagta ku dhufataan insha allah janalkana sabscribe dhahdaan hadduu kuu leeyahana gabalaalka furo haddaan ugu cusub tahana insha allahu tacaala barnaamijkan dadkii horay janalka oo la socday aqoona ka dhargeyna adiguna nagu soo biiro aqoonta ka dhargeyna adigu dhinacaada ka qorqori wasalaamu allah calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatu